aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen oo hogaaminaya garabkiisa xisbiga UCID ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay jiidaha gobolka Saaxil galbeedka ilaa magaalada Berbera halkaas oo ay dadku tuulo iyo degmo ula taagnaayeen calanka xisbiga UCID caleema qoyan iyo sawirka Jamaal Cali Xuseen waxaana ay muujiyeen taageerada baaxadda leh ee uu ku leeyahay gobolka Saaxil isagoo taageerayaashiisa kala hadlay xafiiska xisbiga UCID ee gobolka Saaxil duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Cidin ayaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga UCID ee gobolka Saaxil Roode Axmed Yaasiin oo furiya xafiiskaasi ku wareejisay Jamaal Cali Xuseen mowqifkaygu waan sheegtay laakiin maanta waxaan walaalkay Jamaal ku wareejinayaa xafiiskii xisbiga wareegay Carab Rabiish iyo Maxamuud Khayre oo ka tirsan xisbiga xubno ka tirsan garabka UCID ee Jamaal oo socdaalka ku wehelinayay oo kala dambeeyay hadalka ayaa iyaguna ka mahadnaqay soo dhaweynta ay kala kulmeen bulshada gobolka Saaxil aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen ayaa ka hadlay khilaafkii xisbiga UCID bulshada reer Saaxilna ka taasiyeeyay wixii halkaasi ka qabsaday waxaanu bulshada u sheegay in xisbiga UCID iyo reer Saaxil ay u kala dhamaatay markaana uu aragtidiisa siyaasadeed cadeyn doono marka uu la tashado dadka deegaanka laakiin maanta xafladan soo dhaweynta waxaan doonayaa in aan ku sheegno inaan xisbiga UCID aynu ka baxnay maanta laga bilaabo oo ay tuurnay calankiisa la tuura ee waliba meeshuu joogay berigii yaalay aan dhigno markaan dhigno halkii yaalay markaas haddana mar daba ogaan doono waqti xalaal u yahay Cabdikariim Siciid Saalax Home Cable TV Berbera